السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada wararka ciyaaraha. Waqti xaadirkan waxaa soo idlaaday kulankii weynaa ee u dhexeeyay naadiga kubadda cagta Barcelona iyo Real Madrid. Kulankii El Clasico ayaa waqti xaadirkan soo idlaaday. Kulankaas wuxuu ku soo idlaaday laba gool iyo waxba ee ku adkaatay naadiga kubadda cagta ee Barcelona. qaybtii hore ee ciyaarta waxaa is leedahay qaybtii hore ee ciyaarta maaragtay goolasha dhanba wada imaadeen oo labada gool waxaa u kala dhaliyay Marcus Rashford oo free kick. ninkan waaba laga yaabin yahay Barcelona markasta waxaa free kick maaragtay si direct uu dhalinayaa waaweynka ka naqda meeshan. laakiin inkastoo maaragtay ciyaarta qaybtii dambe fursado badan oo cunay asi iyo maaragtay goolka labaadna waxaa dhaliyay xidiga maaragtay Ferran Torres kubad olmo oo ka helay ayuu dhameystiray isagana. qaybtii hore ee ciyaarta waxaa is leedahay El Clasico waxay soo idlaatay qaybtii hore sida ay ciyaartu ku dhamaatay kadib Barcelona oo hambalyo halkan ugu dirayno maadaama ay ku guuleysatay horyaalkii 29aad ee horyaalka La Liga ay ku guuleysatay caawa maadaama ay hal dhibcood ay rabtay kaliya kulankan ay ka rabtay kulankan. Enzo Felix ayaa oohin jabsaday maaragtay ciyaarta markay idlaatay kadib wuxuu leeyahay taageerayaasha aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tihiin maadaama maaragtay garoonka dhan oo ku wada hay Enzo Felix marka ninkaasna waa kaasa. dhanka kale haddii aan guda galno maaragtay Arsenal oo si xoogeysaday maaragtay rajada maaragtay horyaalka hanashada horyaalka Premier League gool iyo waxba maadaama ay ku adkaasay oo dirqi gool iyo waxba oo dirqi waxa Arsenal gambar waa loo dhigtay galabta. gambarkaas waa gambar aad iyo aad u xun. West Ham gambar loo dhiganayo Arsenal waxaa isdaay West Ham iyo way ku kala bixeen subaxnimo ay ku kala bixeen bulshada maaragtay. laakiin gambarkaas waxay maaragtay la gadisay mucaaradka waxay la gadisay 81 daqiiqo gool uu dhaliyay maaragtay Lisandro Trossard. Martin Odegaard badnaa ku soo dhigay Lisandro Trossard uu shubay. ciyaarta waxay ku dhiglaatay gool iyo waxba maadaama ciyaarta intay idlaatay gool waxaa maaragtay waaba laga barbareeyay Arsenal wadnaha istaagay. taageerayaasha Arsenal wadnaha istaagay isleedahay kadib VAR ayaa dhahay maaragtay gooshaasi waxba kama jirto ee qalad oo lagu galay Raya oo safe badan ka sameeyay ciyaartaasi. ciyaarta markay idlaatay kadib Arteta ayaa u mahad celiyay David Raya maadaama uu badbaadiyay maaragtay badbaadiyay kooxda oo idar. halkaas ayaa kusoo gabagabeynaynaa. aad iyo aad ayaa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.